maamulka dawladda hoose ee degmada Berbera ayaa maalintii shalay ahayd daahfuray koob kubadda cagta ah oo loogu horumarinayo dhalinyarada sportiska ee gobolka Saaxil. على أمور الدنيا ودين مركز هوريله بقى محله مركز لبعض حرونتي عاد وفرح سنة هاي وريجن وبلامي قبل كالساحل لو ما قاعد رأي لرجالين تأيس بربرتاجا مشرح لماذا مدحونا تمرد السوماليلان أحمد محمد سيلاي لرجالين تأيس بربرتاجا مشرح لماذا مدحونا تمرد السوماليلان أحمد محمد سيلاي وريجن وبلامي قبل كالساحل لو ما قاعد رأي dhiirigelinta iyo isbarbartaaga maanta ay isugu yimaadeen ciyaartooyga gobolka Saaxil oo dhameystiran loo dhigay taageerida iyo aydaada dhalinta iyo reer Saaxil baa u hayaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wax qabadkiisa aadka u tiro badan runtii aad iyo aad baan wasaaradda ciyaaraha Shaafici Jaamac Aadan iyo duqa degmada Cabdishakuur Maxamuud Xasan أنا mahadnaqayaa sida fiican ay uga qayb galeen abaabulkiisii koobkani oo loo qabtay kooxaha heerka koowaad ee degmooyinka gobolka Saaxil koobkani ayaa lagu qabtay garoonka caanka ah ee Cabdalle Stadium oo lagu xasuusan karo maayarkii hore ee Cabdalle Maxamed Carab oo ahaa shakhsiyaad taageeri jiray dhalinyarada gobolka Saaxil isla markaasina ahaa mid ay u darsatay magaalada Berbera isagoo wax qabad la taaban karo ka muujiyay magaalada sida wadooyin tiro badan garoonka kubadda cagta ah ee Berbera oo ah mid si heer sare ah loo dhisay kawaanka xoolaha lagu qalo sariibada weyn ee Berbera iyo stationka bilayska ee Batalaale dugsiga sare ee Cabdisalaan Secondary School iyo waliba baahiyaha aas-aasiga ee dhammaan degmooyinka ay ka kooban tahay gobolka Saaxil Cabdiraxmaan Maxamed Cige Oodweyne News magaalada Berbera.